marka koobaad waxaan ahay hooyadii labada ciyaalka yar ee TikTok la dhaxwaday social media isaga keenay ilmahaygii in sidii la igu soo celin lahaa wadanka Jarmalka waan ka baxay hooyo xaamila baan ahay ilmo yar oo kale waan sitaa labada yararka maadaama gudbiyay hadeer in la idacweyn karo oo caruurto dhan la iga xaabsan karo السلام عليكم. السلام عليكم وحن السلام يا أصحابتا مركا كوباد وحاناي hooyadii labada ciyaalka yar ee TikTok la dhaxwaday xaqiiqadana ilaahay baa og ninkaas caruurtiisa markii hore isaga iga qaatay markii dambana social media isaga keenay waxaan igu kaliftay runta inaan sheego ciyaalka yararkii sidii aan waxba ogeyn ee la dhaxwado meesha marka koobaad waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaan xaqiiq ahayn ayuu ka sheegay halka dawladdiina uu iga gudbiyay inaan ahay hooyo xun arrimo badan ayaa jira isagii aniga noo dhaxeeyay laakiin ma rabin lifekeyga noloshayda inaan ka hadlo laakiin damba kaliftay waxaan sheegayaa markaa ilmahaygii in sidii la igu soo celin lahaa wadanka Jarmalka waan ka baxay hooyo xaamila baan ahay ilmo yar oo kale waan sitaa labada yararka maadaama gudbiyay hadeer in la idacweyn karo oo caruurto dhan la iga xaabsan karo marka islaamka ilaahay waxa ka codsanaya ninkaas inta la hadlo in ilmahayga yaryarka uu ii soo celiyo qof waalana ma ihi qof xiska ka jirana ma ihi qof caadi ah oo fayo ayaan ahay wixii jiray oo dhan oo xaqiiqadana uu qariyay wixii dhan kaliftay in ilmihiisa intuu iga qaado hadana waxaan rabaa xaqiiqada inuu qariyay oo xaqiiqadii oo dhan shaaha inuu sheegin waxaan jirin oo joogin sheego meesha la soo istaagay Soomaali Maxamed ilmaha hooyo tuurtay bas ilmo la tuurayna ma jirto ilmo kastaana hooyadii way jeceshahay yaa intii horena anaa haystay anaana la leeleelay anaa intaas oo dhan haystay marka waxaan rabaa xaqiiqadu waxay tahay mar rabo wali inaan indhaha shaaca ka qaado muhiimna iima aha muhiimadeedu waxay tahay sidii uu halka uga calaacalayay in ilmihii yaryara la ii soo celiyo oo meesha aan joogo la igu keeno inta bes aan rabaa muhiimadaan u soo galayna waa inta ilmahaagana gaal loo dhiibay ilmaha yararkaana gaala loo dhiibin sabab anu hooyo bilaadamiir ma ihi wali xiskeygiina waan qabaa waxbana ma qabi isagaan igu kalifay inuu ilmi yar qaato khilaafkiisa iyo dibkiisana ka fadhiyay kar waayay hadeerna inuu isa soo gadiyo oo TikTok soo dhax fariisto isaga bilaabay ما قرن الماء هذه انت joogta النور وين دقنا okay Jarmal jooga marka waxaan ka codsanayaa inaad dhageysano okay diyaar ninkana Jarmal jooga هيا صح aniga hooyo ah caruur dhasho single mother ما شاء الله هاي لا كودس ilmaha dadka iga dhalna Jarmal isla joogaan
isla joogna cala هيا صح ها وفهم okay okay ninka ilmahayga dhalay cunuga dambe markaan dhalaayay macnaha waxaan rabaa inaan ilmihiis ku qoro sida diinta ay raalli هيا ka tahay iyo ilaahay صح uurka markaan lahayaa waxaan dhahaa walaalo ilmahan waxaan rabaa inaan usoo samayso warqadda aabanimada faada shaftiyaal dhaha صح isku dhacaa yimid waa isku booqnay barbareynaa yimid sidii aan rabaan ka waayey anoo wallaco maanta wax cuntihii kariya aan weysanin macna aan haysanin aan dhibaato ku jira صح dhibkaas macnaha waxaan ku baryayay intaan ilmaha caloosha ku jiro uuna dhalan inuu aabanimada macnaha u sameeyo warqadda aabanimada mas-uuliyadda صح marka maxaan ku rahdaa adi iska meerista isla wareejis iyo macnaha ila meerayso cunuga waa dhashay صح cunugii markaan dhalaya isbitaalka igu imaan guriga ma imaanayo waa diidin oo imaado هيا marka isbitaalka markuu igu imaayay ilmihii waxaan sharciga soo saar si haddii dee aan dhalo macnaha lagugu qoro صح sharcigoo soo saaray warqadda caadiga oo sararta lagu dhajiyo cunuga marka la dhalo magaca aabbaha lagu qoray inuu asiga dhalay صح maadaama uu ila socday صح marka lagu qoray maxaan ku rahdaa meesha la leeyahay laga soo sameeyo warqadda dhalashada ishtaad amtiyaal dhahaa af jarmalka meesha laga soo sameeyo waxaan ku ballanay inaan israacno oo macnaha cunuga arrintiisa intay dhinac u dhacayso oo ila dhameeyo maadaama isfahmi weyne ma صح fahantay marka maxaan ku rahdaa waayuu yiri adi maalinkii meeshii lagu ballansanaa maalin wuxuu yiri ballanaa kuu qabtay ballan qalad oo ii qabtay anigoo qalan laba caruur haysto oo jiidaayo meeshiiyaan tegey waxaa la yidhi ballanta maanta ma aha waa soo noqday oo saacad ii jirto ilmihiyaan kaligii jiidaya midna gaari ku riixaya labana gacanta ka hayay صح waa soo noqday gurigaan ku soo noqday maalin kaleeta imaa u dhahay taleefonkeeda batri la-aan u damo yiri صح ninkaas aniga asigaa khayr mas-uule su-aashaasa ku weydi naagtaas iska dhaaf anigii hadlaay انت moogta bal ayaa garbeysa اشيكتي اوكي انت yaa اشيكتي او انت اشيكتي او الهي كل اوغياي هدي صح تا انت اشيكتي نينكاس بقتي بقتي مسؤول maxaa tiri وركي سو معدا مي مقله warka wuu dhaaf socod waxaan ku dhahay inta aa sheegtay hadday intaas ay sax tahay oo ilaahay kula og yahay boqolkiiba boqol ninkaas ayaa kheyr mas-uul ah warkaas kaliimo sukaya warka waa ku socdaa ilaahay igu oginaan bay sheegin hal xaba haddaan been ku daray ma ayaa garbeysaa runtii iyo rabbigay leedahay mogta maya sug adiga ilaahay waa imaqlaya malaa'igaan qoraysa waxaa sheegaya mogta anaa been sheega ani meeshaan qofna ka cabsan maayo ma garat صح ilaahay ka صح cabsanaya okay markay saas dhacday father shaftigii warqadda aabanimada yani maadaama uu taleefonka iga dansanay ninka 3 bil cunugayga ceer la'aan u ahaa warqad dhalasho la u ahaa waxaan kula doodayay inuu cunugan ninka dhala oo ku qoro hadduu ku qori waayo ninka inuu barbale ugu furayo mogta صح marka ninka warqadda sameynaya wuxuu yiri ciyaalka maadaama 3 bil ceer la'aan dhigtay oo ay ugu qasbaysan ninkan adiga official guurasho la gelin oo si caadi oo dawladda Jarmalka ogta ama passport Soomaali aan keensan lagu qorayo wax lagu qorayo ma jiraan marka ilmihii labadii hore aday ku qornaan kan ada lagu qoraya hadaa diidido ciyaalka qaatan kugu wareejinayaan ma garat waa gartay marka hooyo waa dareemi kartaa baarkeeda banaanka yaalla oo mid yar oo hadda umula haysata labana jiidayso haddii la dhaho ciyaalkaaga dadka ciyaalka qaataa ku soo galayo waxay dareemaysa waa dareemi kartaa hooyo kaligeed ma garat aad iyo aad ninkana oo saa ku naqday aad iyo aad ilmihii waxaan ku qasbanaaday in macnaha aniga magacayga la siiyo anoon raalli ka ahayn sid ilaahay ugu ogyahay marka ninkaasaytu meel walbaa la galay anigii asigaa gardar asaa gardaran yaa asaa kaa gardaran boqolaal dumaraysaas ku dhacday asi camalaa lahaaya oo saas u gardaray hadda wuxuu igula oo doodayaa jirta, maxaa yes, ilmihii sax. ugu qorweysa laba way gurigaan oo joogay wuxuu igula doodayaa sababtoo ah ibaha dishay cunugaygii anoo nool magacaa ku qortay anigaa saan yeeshay aniga maxaa lacagta dhiib aan u bixiyaa cunugayga sababta ay ugu qoran la'da maxay tahay adaa iga hor istaagsan noloshiisa adaa hor taagan adigaa saan yeelay ku leeyahay cunugi maanta waa 2 jir yani hadday la soo xumaato waa sheekada haa rag badan oo saas marka u lahaa walaalo macaan oo hooyooyin haddaana waa dhibanahay gabadhaas ilmaha tuurtay hadhihin way Haa. qaldantahay waxa in la dili jiray abaa waxaa laga yaabaa in abaa